sanadkii tagay barnaamijka BBC Africa Eye ayaa baaray warar sheegaya xabsiyeen jirdil iyo garaacid loogu geysto dad xarumaha dawada ee aan shatiga lahayn ee magaalada Nairobi. wariye horey nooga tirsanaa oo isticmaalaya kaamirada qarsoon ayaa duubay Cali oo markii ugu horeysay la keenay xarunta Daarushifa ee xaafadda Islii. qoyskiisa ayaa sheegaya in dhibaato dhanka iskuulka ah ay haysatay daroogana uu isticmaalayay. dawada Daarushifa waxaa ka mid ah in lagu qasbo dadka qabitamay maandooriyaasha in ay cabaan xarmala. sababtana matag xad dhaaf ah. baaritaan dhanka maandooriyaha ayay ku sameeyeen Cali waxbana lagama helin iyadoo ay taa jirto ayaa lagu qasbay inuu cabo xarmala. macalin ha isiinin mar dambe. kuwa aan ku tilmaami lahaa wadaadda ku sheeg ayaa aaminsan in qofka la xidho in la garaaco in lagu xadgudbo inay si unu caawinayso laakiin qofkii caqli leh taasi ma qaadan karo. maalintii xigtay Cali oo 18 jir ah waa la garaacay kadib markii uu diiday in uu mar labaad cabo. inaad garaacdaa rabtaa. garaacidan ayaa socotay 5 daqiiqo. waxayna baraha bulshada ka sababtay caro. markii barnaamijka la sii daayay dadkii daawaday waxay cambaareeyeen dawladda Kenya iyagoo isweydiiyay Kenyada aan rabno matana. laanta la socodka caafimaadka ayaa ku qasbanaatay in ay ficil samayso. maalinka aan sii daynay barnaamijka maalintii ku xigtay hay'adda Nakada waxay gashay goobihii ay dadku ku xidhnaayeen. waxay xidheen mulkiilayaashii iyo shaqaalihii qaar ka mid ah waxayna badbaadiyeen dad ka badan 100 qof. milkiilayaasha qaar dalka ayay ka carareen si aan loo xirin bukaanadoodiina waa ay dayaceen. The patients were all taken to Mathare Hospital. dhammaan bukaanada waxaa loo qaaday Mathare Hospital. baaritaan caafimaad ayaa lagu samaynayaa. waxaan gooni u xaraynay kuwa la doonayay in la daaweeyo iyo kuwa aanan ogeyn sababta halkan loo keenay. waxaa halkaas loo geeyey dhaqan celin ama sababo kale. kuwaas waan sii daynay. There may be for discipline or for other reasons. Those ones we release them to go. inta badan dadkaasi waa laga waayay jirkooda wax maandooriye ah. kuwa la buka daroogada la xiriirta dhimirkana waxa la geeyay xarun dhaqan celis oo lagu kalsoon yahay. waxa ayna rajo gelisay kuwii isku buuqay. This place was a miracle for me, I think. goobtan anigu mucjiso ayay ila tahay. waxaan u malaynayaa inay noloshayda wax ka bedeshay. hadda wax walba rajo ayaan ka qabaa. markaan halkan ka soo baxa wax noloshayda u wanaagsan ayaan sameeyaa. una wanaagsan naftayda, qoyskayga iyo bulshada inteeda kaleba. My family and to the community. ayadoo ay sii socoto doodda xarumaha diinta ee dhaqan celinta ayaa Jamaal waxa uu aaminsan yahay in muuqaalkaasi uu wax badan bedelay. muhiimadda saxaafaddu waxa weeye in dadka la siiyo xog dhab ah si ay u qaataan go'aan sax ah. marka saamaynta uu barnaamijku keenay waxa weeye dad moodayay markii hore goobahan ama xarumahan in dadkooda lagu dhaqan celinayo oo iyagoo wanaagsan ay ka soo baxayaan inay dib uga fiirsadaan oo isweydiiyaan war ma meeshan aan dadkanaga u diri karnaa.